بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waa salaamaya. Maanta waxaan idin soo hor istaagay inaan dadka warbixin ka siiyo xaaladda dalka meesha ay marayso iyo wixii aan soo marnay meeshaan maanta joogno iyo meeshaan u socono. Jamhuuriyadda saddexaad ee maanta jirtaahay waxay ka soo bilaabatay Carta kadibna waad garanaysaan laba sano mandate ku dhamaaday Eldoret, Embagathi, Jowhar, Baydhabo ka bacdi Xamar 2012 ayaa ku meel gaarnimadii ay soo dhamaatay oo la soo koobo dalku uu yeeshay dawlad aan ku meel gaar ahayn. Intaas intii ka horeysay muddo 12 sano dadkii soo shaqeynayay xilliga ku meel gaarnimada hawl adag duruufo adag ay ku soo shaqeeyeen wax badan ay soo qabteen oo soo gaarsiiyay 12 ma dhici lahayn 12 in ku beelgaarnimada laga baxo haddii aan la soo qaban lahayn shaqadii faraha badnayd ee 12 sano la soo qabtay intii soo qabato dhan ay ku soo dadaasho qof walba maalinteeda intii dadaal uga habooneed ay uga aadanayd ay soo qabatay 12kii ku beelgaarnimadii marka laga baxayna dawlad rasmi ah oo markaas ay dhismayaan tiirarkeedii iyo maxaan ku raadayay asaasayaasheedii ayaan helnay waxaan ku noqonay beesha caalamka sida dawlad caadi ah waxaan ku noqonay hay'adaha caalamiga ah iyo dhan waxaan ku noqonay sistemyada caalamiga ah ee dhaqaalaha iyo maxaan ku raadayay siyaasadda iyo maxaan ku raadayay wax walba la isaga wareysanay oo Soomaaliya ay qayb dib uga noqotay muddo dheer ka bacdi intaas waxaana u sababay inaan ku noqon horumarka aan sameeyeen haddii aanan horumar sameyn lahayn kumaana noqon lahayn nooma suurta gali lahayn inaan ku noqon dabcan beesha caalamka aad iyo aad ayay door garb istaaga oo cad uga qaadatay dawladda Mareykanka dawladda Ingiriiska midowga Yurub dawladaha Afrikaanka ah jaamacadda Carabta muslimiin dhammaan caalamku nooma kala harin waana la garb istaagay suurtagal ma noqon lahayn haddii aan la garb istaagi lahayn inaan systemka dhaqaalaha adduunka dib ugu noqono oo aan IMF la macaamilno oo aan World Bank la macaamilno oo Cotonou Agreement la macaamilno si cad ayaana loo garb istaagay ka soo baxa shuruudaha loo baahan yahay kaliya hadina la dhihi lahay maana ka soo baxneen in bangigeenu shaqeeyo wasaaraddeena maaliyadda shaqeyso Swift code yeelano electronic transfer yeelano adduunyada ay nala macaamishahay waxa u sababahay sida naloo kaalmeeyay iyo dadaalkii gudaha dadka Soomaalida ay sameeyeen inta kadib 2017 doorasho kala dhacday marka laga yimaado 2012 dalka asoo ku meel gaar ka soo baxay ayaa dawladdii 2012 aniga aan odaga ka ahaa ay timiday waxaan ka tagay dalka asigoo degan ilaa xad asaaskii dimuqraadiyadda ay meel taalo ilaa xad Soomaalidu waxa la yiraahdaa isma xukumi karto inaan is xukumi karno muujinay dib u heshiisiin sameeynay dalka dastuurka wuxuu ku qornay dhaqan dimuqraadiyad maxaa u horeeyo dastuurka ku dhaqankiisa u horeey inaan dalkii dawlad goboleedyada la aasaasay la dhisay la wixii wax qurxoon oo wax walba u dhan yihiin oo xoog badan ma jirin laakiin wax bilaaw ah oo cunugan dhalan ma dhaamiya Soomaalidu dhigi jirtay markay xilli oo la gaarsiiyo wiilka inuu dhaamiyo ayaan soo gaarsiinay amniga dalka asigoo laga soo shaqeeyay dadaal badan loo soo galay dhimasho iyo dhaawac badan dad Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed oo qarabka sida ay rag badan ku soo dhinteen ciidamada walaalaheen Afrikaanka ay dad badan uga soo dhinteen shabaab caasimada laga saaray dib loo riixay ayaa hadana degmooyin kale oo far badan shabaab laga sii saaray oo dhaqdhaqaaqa dadka iyo badeecadahooda iyo wuxuu xoogaa intii hore ay soo dhaantay laakiin in badan ay dhineed inta kadib meeshas ay ka saaran qaado annagu markii 2017 waxaan ka tagnay dawlad sidaas ah degan dadku ilaa xad kalsoonida dawladnimada lagu qaba ay soo noqotay dhaxdooda ay heshiis yihiin waxay wada leeyihiin oo ka dhaxeeyo oo ay wada sameysteen oo ay wada ilaashadaan ay u meel yaalaan ayaan ka tagnay waxaan ka tagnay nidaam degan oo aan u dhignay in 2020 doorashadan 4.5 ah ee qabaliga looga gudbo oo loo gudbo doorasho maxaan ku raadayay national oo qof iyo cod ah iyo in nidaamka federaalka ee caasimadaha xamar caasimada jamhuuriyadda laga qaaday ee magaalo madaxyada dawlad goboleedyada la geeyo hoos loo dejiyo oo dadka Soomaaliyeed xukun ujeedadu intaas ay ahayd federaalka ujeedadiisu ugu weyn waxay dadka in loo dhaweeyo xukunka in gobolada caasimada dawlad goboleedyada caasimadooda laga qaaday ee degmooyinka la geeyo oo dadka xukunka loo dhaweeyo
oo ay dadkooda doortaan oo ay maxaan ku irahdaa isu taliyaan ahayd mahadaya ka gaartaan leeyahay waa ku hambaleynayaa tijaabada yarta ah ee dowlad goboleedka Puntland ay sameysay waxaan leeyahay waa arin ididiilo leh waa mithaal waa wax mustaqbalka dambe looga daysan karo guulaheeda iyo ciladaheedaba laga faa'iideysan karo doorashada maanta taagan markaan u imaado wadadaas dheeraan soo marnay oo aad iyo aad u dhibka badan maanta doorashada taagan waxaan u baahannahay waa wanaag waa guul in hore loo socdo haddii shalay ay lugta nagaga xirnaato oo shalay waa la ifiiri maalin hebel waa tii raadiya saan layga yiri maalin hebel waa tii statementiga noocaana xagga laga soo saaray maalin hebel waa tii xabadda laygu riday maalin hebel waa tii jidka inaan maro la ii diiday maalin hebel waa tii maxaan ku raadaay baraha bulshada laygu ceebeeyey laygu caayay laygu dulmiyey la iga been sheegay haddaan joogno shalan joogaynaa maantaana dhaafay maanta haddana shalay noqonay beri haddana shalay noqonay dad shalay la noolaan noqonayna dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa anigoo ah oday waaye arag ah siyaasadana waaye arag u ah arrimaha bulshada inuu waaye arag u ah shalay inaan ka nimaado oo maanta intaan nimaado beri aan u diyaar garowno wax kastay ahaato wixii la soo maray waa la soo dhaafay sooma noqon karaan doorashada waxaan rabnaa wiil iyo gabar Soomaaliyeed madaxa xorka ah aqliga xorka ah reerkooda matala inay yimaadaan aan rabnaa madaxda iyo mas'uuliyiinta meel kasta joogtana waxaan leenahay garawshiya ka bixiya dulqaadka u ogolaada dadka dardaarankayga odaytinimo ee aan dadka mas'uuliyiinta maanta joogo aan leeyahay waa sidaa annagu waxa aan doonayno u taaganahay waa sidaa aad iyo aad ayaan u kalsoonahay doorashadu inay dhacayso waqtigeeda ay ku dhacayso waqtigeeda marka la yiraahdo يعني مالنا la qabtay 40 maalmood la qabtay 15 January ilaa iyo 25 February 40 maalmood waay 40 maalmood aniga waxaan aaminsanahay doorashada waa lagu qaban karaa 225 xildhibaan waa lagu soo dhameystiri karaa in badan waaba dooran yihiin la yiri laakiin haddana haday 45 noqoto iyo 42 iyo 43 iyo 23 beri iyo waa si simbir waa la dhigi karaa laakiin waxaan rabaa madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedadaba aad iyo aad u adag tahay in la aqbalo cudur daarna loo helo in ay bil 2 bil 3 bil ay sii socoto adduunyada digniinana la sii waxaan rabaa halkaan inaan uga noqdo ka sheego digniiniyada qaarkood adduunka ma saan la hadli karo dal xor ahaanahay dal kan aanahay waa run laakiin dal goob ahaanahay waxa sovereign la yiraahdaa nahay laakiin tiirarkii sovereignimadu ay ku taagnayd ma dhoondhan yihiin haddii la leeyahay amnigooda ma sugi karaan ha loo kaalmeeyo aan la sugno haddii la leeyahay dhaqaalahooda kuma filna ha loo kaalmeeyo kaalmo aadamnimana la siiyo kaalmo dhaqaalana la siiyo haddii la leeyahay isma xukumi karaan ha loo kaalmeeyo oo chapter 7 ha lagula dhaqmo oo xukunka ha laga kaalmeeyo wali waxba noo dhiman waxa intaas dheer marka in loo digo oo la yiraahdo waqtigaas hadaad ku imaan weydaan annaga waa waqti kale idimaan waa idinka tageena macnaheedu maxaa waaye macnaheedu waxa waaye wixii aan ku guureysanay 8 sano ee la soo dhaafay ee ku meel gaarnimada aan ka baxnay oo dhan inaan dib u wayno inay suurtagal tahay IMF tadaytira la macaamil maayo World Bank haduu yiraahdo la macaamil maayo ka bacdina muxuu ahay African Development Bank iyo Islamic Development Bank ay yiraahdaan la macaamil mayn xagee maxaa xaaladeen noqonaya hamuuntii shalay mugaan aan ka soo baxnay ku meel gaarnimada loo qaba mana loo qabaya haddana aan ku soo noqono meeshii ma sahlanaan doonto inaan ku soo noqono dadka Soomaaliyeed waa uga diga madaxda waa uga diga dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka yaan la gelin ciriiri iyo walax oo mar hore ka soo gudbay inuu duruufo ku noqonayo yaan la aboorin waxaanad ku aad uga badbaadi kartaan doorashada inaad soo dedejisaan doorashada waxa loo yaqaan integrity-geeda inaad ku dadaashaan walaalayaal waxaan rabaa kale inaan
adiko og idin xasuusiyo madaxdeenniyey doorasho xumaata wax ka dhalan karo afghanistan doorasho xumaata ay u jabantay meesha u taala ciraaq doorasho xumaata meesha u taala maanta liibiya doorasho xumaata meesha u taala dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ma awoodo in uu doorasho xumaata awgeed oo ku sii nagaado xaaladda ma ku nagaan karna xaaladda aan maanta joogno inaan ka baxnaan u baahannahay inaan soo boogadhayanaan u baahannahay adduunyada inaan soo muujino dhan waa kana adduunkan ka midnaan u baahannahay waxaan u baahannahay waa xaasoo dhan waxay noogu suurtageli karaan dulqaad is-aqbalid iyo daacad inaan ka noqonno dowladnimada markay timaado war dowladnimada laablaab ma gasho dowladnimadu been ma aha dowladnimadu cabsi gelin ma aha dowladnimadu ballanqaad laga baxa ma aha waxaan u baahannahay amnigeena oo wax walba dimuqraadiyiintu suurtagal maaha haddii aanan amniga helin amnigeennuna xaaladiisa maanta waa ogtihiin awoodeenna amnina ciidanna waa ogtihiin xaaladeenna ciidanna waa ogtihiin labadaba ma raba inaan ka sheekeeyo wiilasha ciidanka qalabka sida ah sharaf badanay mudan yihiin nin naftiisa keenay oo dalka u hadiyeeyey hadiyad ka weyn oo la bixilahay qof bixilahay ma jiro ceeb male eed male waxay bi'iyeen male waa dadaaleen madaxda siyaasiyiinta iyo hoggaanka ciidamada hadday wax qaldamaan ayaga ka mas'uula wiilka yarkaa ka mas'uul maaha gabadha ciidan ka tirsan ka mas'uul maaha waxaa ka mas'uula hoggaanka ciidanka ee kala sareeya waxaa ka mas'uula siyaasiyiinta dalka yaa ka mas'uula wiilashu waa ammaanan yihiin gabdhuhu sidoo kale xushmad iyo qadarinay leeyihiin waa dad karaamo leh naftooda u horay dalkooda yaan dhiigooda aan la macno tirin intii dhimatay yaan dhiigooda la macno tirin agoonta maanta joogta sababtay u aabalaayiin yaanay garan waayin kuwa curyaamiintaa sababtay u curyaameen yaanay garan waayin intaas waxaan u jeedinayaa waa madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadaba madaxda kuwa dadaalaya waa mahadsan yihiin qaar badanaa muujiyey mas'uuliyad qaar badanaa muujiyey dadaal dheeri ah waa mahadsan yihiin kuwa kale ay la ahaatayna yaanay idinla ahaanin dhulka imaada xaqiiqada u imaada dadkiina iyo maxaanku irahdaa duruufahooda u imaada dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay guulan idin rajaynayaa dhammaan dhibaatada iyo duruufaha taagan yarkaa waa laga gudbayaa waxaase looga gudbi karaa xoog iyo qoray ugama gudbi karno dulqaad iyo dib u heshiisiina uga gudbi karnaa haddii kuwa maangaaba dulqaadkiinu ay dayuusnimo u qaateen ha ka dhegaysanina dulqaadkiina wada dulqaata shalay ka imaada maanta imaada birina u imaada waa guulaysanaynaa ilaahay idankiis guushina wax yaraa ka dhiman aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh